والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت طبعا ومالين وروح بدن سكول كرا واحد مدة مالتها كدم بيسا بليع يروح بكورديسا وحين موجنا يسا ذلك مامولك iyo macallimiinta iyo dadka gacanta ku haya iskuulkani ay hadiya jeer ku holeeyihiin. maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc aad muhiim u ah oo ay ahayd waqti badan inuu qaato laakiin maadaama daabuur aan joogno waxaan rabnaa inaan soo koobanno. waxaad la socotaa adduunku inuu maalin kasta wax casri ku soo kordho. teknolojiyadda aan adeegsanayno waa nimco Ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu risaaqay oo insaankan hadda xilligan nool uu dheer yahay bini'aadankii hore oo isagu waqtiyo kala duwan soo maray ama casrigii waxaad tiraahdaa waagii al-casr al-xajari xilligii dhagaxa xilligii barafka xilligii dabka xilliyo kala duwan baa bini'aadamku soo maray. marka insaanka hadda nool wuxuu sameeyay kacdoon warshaduu sameeyay teknolojiyad buu sameeyay adduunkana wuxuu ku soo aruuray oo qofka waxa weeye uu fursad ugu helaya inuu ka socdo aaladda yarka aan haysto oo mobile-ka loo yaqaano. adduunka dhan baa isku xirmay waxa weeye qofka wuxuu awood u yeeshay inuu qaarad kale qof jooga inuu la xiriiro oo si briqsiyada ah waxa weeye ula hadli karo oo arki karo wax kasta uu runtii jecel yahay inuu si fudud ku helo meel loo socon jiray bilo in lagu tago saacado. Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa inoo sheegay wuxuu yiri wa yakhluqu ma la ta'lamun waxa idin ogeyn oo badanna Ilaahay waa abuurahaya oo bini'aadamka uu sahli doonaa. annaga hadda aan joognana waxa laga yaabaa facyaasha naga dambeeyay inay iyaguna ay gaaraan wax annaga hadda aanan sawiran karin. maxaa yeelay insaanka hadda jooga waa uu ka duwan yahay kii 100 sano ka hor joogay. haddii 200 sano ka hor qof hadda jooga qabri ku jooga la weydiin lahaado ma laga yaabaa inaad boosaaso ku gaarto 5 saac wax ka yar wuxuu ku dhahayaa macquul ma aha Soomaa. waxa laga yaabaa annaga dadka naga dambeeyay inay teknolojiyad cusub iyo adeeg cusub ay la yimaadaan laakiin wax walba soo kordho wuxuu leeyahay saameyntiisa wuxuu leeyahay qaloocan ama negative saameyn wuxuu leeyahay negative ah iyo mid faa'iido loo positive ah ama iijaabi ah. marka social media ama baraha bulshada waxa loo yaqaano waxay noqdeen waxa ugu daran oo hadda caalamka uu hadal hayo isla markaana saameynta ugu weyn yeeshay baraha bulshada. waxaan maanta markaa rabnaa inaan daraasad yar oo kooban ba isweydaarsanayna oo macallin la yiraahdo Newport oo Mareykanka ku yaala uu ka sameeyay dhalinyarada gaar ahaan ardayda iyo saameynta uu ku leeyahay baraha bulshada ay ku leeyihiin. way baraha bulshada uga hadlaynaa baraha bulshada waxay hoos u dhigeen garaadka ardayda waxay hoos u dhigeen dadaalka ardayda waxay hoos u dhigeen heerkii aan ka rabnay ardayda inay wax akhriyaan quraankii iyo diintii barashadiisa ay hoos u dhigeen waxay hoos u dhigeen waalidkii caawintiisii iyo baarinimadiisa hoos u dhigeen waxyaabo badan bay marka mobilada iyo baraha bulshadu ay soo kordhiyeen. daraasadaas waxay leedahay baraha bulshadu waxay khatar ku yihiin caafimaadka dhalinyarada oo waxa la arkay dhalinyaro badan oo uu ku dhacay dhimir inadequate sleeping bay dhaheen hurdo yar oo aan ku filnayn buu qofka seexanaya markii hurdada ka yaraatana waxa imaanaysa inuu appetite-kii uu ka xirmo. markuu appetite-ka ka xirmana waxa weeye waxa ku dhacaya waxa weeye in uusan qofku dhaqdhaqaaq yeelan maadaama uusan hurdin waxba uusan cunin waxa weeye milal buu noqonayaa oo mariil buu noqonayaa qofkii appetite ma hayo hadiya jeer gurigu dhex fadhiyaa mobilku ku mashquulsan yahay xarakadii active-nimadii laga rabay qofka dhalinyarada ah maadaama dhalinyaro uu yahay inuu sameeyo waa meesha ka baxaysa. kubad ma ciyaarayo ma soconayo waagi dhalinyarada inta ay ka tagaan guryahooda waxa laga yaabaa ay magaalada kooneed uga baxaan ama aragto dhalinyaro sahmin sameynayso oo geedo cusub iyo soo baranaysa iyo deegaan cusub hadda arki maysid way yartahay Soomaa. maxaa keenaya baraha bulshada lagu mashquulsan yahay taas iyadana waa ka dhalatay oo dhibaato ka dhalatay. waxa ka soo kala ka dhashay oo baraha bulshada ay soo kordhiyeen qofku wuxuu xoog saarayaa muuqaalada qofku xaqiiq ma raadinayo inuu maanta isa sawiraan waxay uga muhiimsan tahay inuu waxa weeye wax akhriyo. haddii maktabada yaa soo gal wax akhriya maktabada buug inuu akhriyo waxa uga muhiimsan inuu selfie iska qaado buug ba akhrinaya ma sha Allah buug ba akhrinaya bulay
inuu marka inta soo dhigo oo buug ba akhrinaya ba waxay ugu muhiimsantay inuu buugiisa dhaba u akhriyo ama wuxuu dhahayaa sawir iga qaad anoo maktabada dhex taagan waxaan dhex taaganahay maktabada iskuulka Xaj Cali Biixi marka isaga inuu wax akhriyo waxa ugu muhiimsan comment-yada marka daraasadda la sameeyay waxa la yiri oo 13 kun oo dhalinyaro baa lagu sameeyay arday u badan waxa la yiri dadkaasi boqolkiiba 30 iyo 5 dhalinyaradaasi waxay ka walaac qabaan in lagu taageerayo sawir uusan jeclayn qofku lacab isaga jiraaba ama qoftii xamdi ahayd ku soo taageeraysaa muxuu ahaa sawir adoo si u qaab daran ama ninkii Faysal ahaa ama kugu soo taageeraya adoo si u hurda walacab ku jira boqolkiiba 22 waxay ka walaacsan yihiin baa la yiri inaysan comment helin wallahi sawir baan soo dhigay wax comment ma helin balaa ya ka dhacday la ilaaha illa allah maanta comment ma helin ba nin la ma jecla miya oo qofkii marka uu isku xiro sawiradaasi image-kaas uu soo dhigayo iyo la falgalkaas Facebook uu rabo inuu laga falgalo inuu ku xiro noloshiisa dhabta waxay tahay mana aha waxay kaloo sheegeen inuu qofku uu sameeyo comparison isbarbar dhigid waxa laga yaabaa nin Mareykanka iska jooga oo ay isku cimilo ahayn isku duruuf ahayn in sidoo uu labisto iyo soo u socdo iyo qaabku uu fakaro iyo sidoo waxa weeye u jeesteenayo inaad adigu isku ku daytid la duruuf ma tihid abaar baa halkan kugu haysta waxa weeye waalidka waxa weeye ya Allah baaba laga yaabaa in iskuulka lagaaga bixiyo in waxa laga yaabaa duruufta adag ay ku hayso oo aadan la duruuf ahayn dadkaas marka inay iska faajoonay Mareykanka jooga taa ku dayta ka waran in qofka identity-giisa uu dhumo identity qofka ma leh يعني أديك واحد ما حتى هذا واحد قف مسلمة واحد قف صومالية واحد قف قال كعية شوجة وحلا ده مركا نقن يدين يكلتشر يظروفه مركا ظروفها صار نوع كك طلابة يسا واحد كسامين يا براه بالشدة واحد نقن كتير كلتشر كتير مركا سقف واحد على الوحيد الصادق براه بالشدة وعقبة إن يطبطها يرونتها مرة أهم دراساتها صار مركا واحد وش يجينا واحد تاعي inaan ka digno khatarahaas baraha bulshadu ay leeyihiin iyo adeegsiga aaladahan kala duwan oo casriga ah oo mobile kale ee computer kale ee iPad-yada leh inta waxa la rabaa in lagana faa'iideysto lagana taxadaro daraasadu waxay sheegaysaa maado dopamine la dhaho oo maskaxda ay soo dayso oo wax kasto qofku uu addictive ku noqdo oo la qabsado ayaa maskaxdu soo deynaysaa waa dheecaan maskaxdu soo dayso oo qofka markuu happy u noqonayo qofku markuu maanta dhan Facebook scrolling waxa la qof markaas u wado maanta dhan maadadaas maskaxda soo deynaysa habi waa iska noqonaysa marka waa darooga marka ismoogid adiga waa darooga sata soo islama yaabtid inaad istiraadin inta 10 ka akhrin xogaa isha ku xad oo ma aragtaado nus saac ka soo wareegtay ama hal saac ka soo wareegtay maskaxdaada marka inay 10 ku soo laabato waxa la yiri hadii aad 5 daqiiqo mobilka aad ku fororto aad fiiriso maskaxdaada si ay u soo laabato oo 10kii ay u fahanto waxay u baahan tahay 25 daqiiqo bay u baahan tahay ila maskaxda adduun kala gelisay moogtahay midda labaad baraha bulshada markaan galno qadiyado annaga waxba aanan ka qaban karin baan ku dhaxarkaynaa adiga hadda dagaalka Ukraine maxaa ka galay ya maxaa ka qaban kartaa dagaalka Ukraine haye Vladimir Putin ninka maskaxda u ahaa gabadhiisa oo Ukraine ay ku dhex dishay meesha la yiraahdo Moscow murugteeda maxaa ka galay waxa ka qaban kartid dadka Pakistan hadda markii aad aragtid maxaa ka qaban kartaa magaalo kale oo adiga aadan ogeyn oo aqoonin baa waxa lagu yiri saaki guriga waxa ku soo dumeereer conflicts wuxuu ku tusayaa marka wax mawaadiic aad u fara badan waa sax inaad ka ogaatid adduunka oo la murugootid dadka muslimiinta iyo bani aadanka dhibaatada ku dhacaysa waa sax laakiin adiga waxa ku yaala waxyaabo ka muhiimsan marka maskaxdi marka waxay galaysaa mawaadiic kala duwan oo aysan waqti u haynin xal aysan u haynin maskaxdana wax kasto ay fiiriso ogow saameyn ku leeyahay maskaxdana ku haraa sawirka maanta aad aragto 20 sano kadib wax xusanaysaa saasa islaamku wuxuu u dhahaa indhaha astura xumaan ha fiirinina laana qofka waxa uu fiiriyo horeen oo sheegnay Soomaaliya maxaa qofku waxa uu cuno iyo wuxuu fiiriyo iyo wuxuu maqlo weey waxaad maqasho wax kugu soo noqonayaan waxaad fiiriso wax kugu soo noqonayaan waxaad cunto jirkaaga ku soo baxaya Soomaa hadaa xaraan cunto xaraan baas badhalaysa haddaad xalaal cuntid xalaal baad dhalaysa haddaad wax wanaagsan fiirisid quraan akhrisid wax wanaagsan ma maskaxdaada fiirinaysa haddaad xumaan fiirisid xumaantaas baa soo baxaysa iska ilaaliya marka saas daraadeed marka ku mowduuc oo adiga waxba aan ka qaban karin
maskaxdu waa la falgelaysaa maskaxdan ilaahay ciyaar uma sii adiga hadii ciyaar kula tahay wax iska fiirsanaysid iyadoo wax kasta serious bay u tahay wax kasta dhab bay u tahay wax kasta waa dhab jirku xubnihiisa oo dhan mid wax buu qabtaa waxa la jirka murmay waxa la yiri waxay isku raaceen jirka wadnii waa faanay wuxuu yiri anigu hadii dhiigan siidaya haddaan sakan istaago waxa weeye waa dhimanaysaa maskaxdii waa faantay waxay tiin ana bidii haga ilay adigu laantay maxaa qaban karnaa adigu jirkii wuxuu isku raacay markii dambe dabada waxa la yiri iyadu wax faa'iido ma laha dabadii waa iska burugootay waxa weeye deewaana xubin muhiim oo maxaa dhaxmara qashin saar bay samaysaa Soomaa qashinkii qabatay marka jirkii baa qeyliyay marka waraga sii daayay muhiim aad ugu muhiimsan baa marka waxaan ka wadaa jirku xubin kasta Ilaahay uu abuuray ahamiyad baa loo abuuray maskaxda marka waxa loo abuuray inay wax weelayso wax fahanto insaanka hagto hadii marka aad ku mashquuliso wax iyada aan danteeda ahayn waxa ka dhalanaya marka wax dhibaato ah waa soo gabagabaysanayna kalmadeena dhowr qodob baan ku soo gabagabaynayna waxaan isku raacnay hadda in mobilka iyo baraha bulshada ay dilayaan maskaxda ay u diran yihiin caafimaadka ay u diran yihiin dhaqanka Soomaa sidii marka aad sax kameyn lahayd oo aad naftaada u badbaadin lahayd waana ka shaqaysid waliba dadka la hadlayo waa dad qaangaara waa hadda fasalka meesha iskuulka fadhiya waxa weeye waxa ugu yar Soomaa 7 ilaa form 4 way hadda inta subaxda dhigata soo khaldana mise 8 ilaa form 4 way kulligii qaangaar baa tihiin dad wax fahmaya tihiin mas'uuliyiina marka marxaladan la joogana qofku waa la hadlaa adiga in lagu garaaco in xoog laga qaado mobilka xoog soo kordhimaysid adiga marka inaad wax weelaysid fahantid oo aad dantaada ka shaqaysid baa noloshaada ku tirsanaysa insha Allah marka taas waa mid tan labaad kulligan waxaan rabnaa inaan guuleysano guushu waxay ku xiran tahay cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan la ka cabsano ittaqullaha wa yu'allimukumullah Ilaahay ka baqa Ilaahay baa idin baraya qofku markuu noloshiisa Ilaahay u dhiibo oo Ilaahay uu ka baqo Ilaahay wax walba u sahlaya mid kale anigu ma arag qof guuleystay oo hadana leeyahay waa qof waalidkiisa caasi ku ah ama qof gaabiyay waalidkiisa ka gaabiyay ama aan caawin iyo taas iyo ma arag muxuu ahaayay cilaaqo ka dhaxaysa guusha laakiin waxaan had iyo jeer arkaa markasta waxa guusha ay ka dhaxaysaa waalidka in la adeeco loo ihsaan falo la caawiyo iyo guusha waa isku xiranta waalidkiinu waa sirta najaaxin iyo guushiina ayadana taas inaad u tagoysaan waa muhiim waxaan ku soo gabagabeynaa sidoo kale inaad waqti samaysataan qof aan jadwal lahayn oo aan waqtigiisa aan maamulaynin naajix ma noqonayo mana guuleysanayo waxa meesha u joognaa waxa weey inaan xaqiijino amarka Ilaahay uu siiyo ahaa kelmadii ugu horeysa quraanka soo degtay maxay ahayd iqra wax akhriya waxaan u baahanahay inaan wax akhrino marka wax akhrino waxay u dhigamaysaa inaanu wax badan weelayno wax badan fahanno adduunka la socono akhrintuna yaada ma aha yeesan ku sirin waxyaabahan aad meelaha ka fiirinayso oo laga qoqorayo meelahaas ma aha baraha bulshada macluumaadka ugu badan waa khalad dhalinyaro badan baan arkay oo iyagu hadda ictimaada ama ku tiirsanaada Google-ka ogaada mar kasta oo aad Google-ka aad xogta ka raadiso waa mar kasta oo waxa weeye xogtii saxda aad helin Google-ku level gaar ah baa xogta uga baahnaan kartaa laakiin mas'alada xisaabta lagu soo qoro hadaa Google ka raadis macalinka waxa weeye mas'alada saynisku ku yiri ka soo baar homework u qaada Google-ka ka soo koobiyeysato hadda waxaad noqonaysaa qof wax koobiyay aad noqonaysaa naftaada waa khiyaamaysaa marka dadaal waqti fiican ku bixi xogta si saxana u qaado waxaad helaysaa marka xog saxa waxayna dareemaysaa naftaada kalsooni bay dareemaysaa marka dadaashid sidada nafta kalsoonida waxay heshaa markay dadaasho laakiin wax iska yar markay qaadato halkaas ma dareemaysaa kalsooni aad baan u mahad celinayaa dhammaan ardayda sida sharafta aad dhigaysateen waxaan rajaynayaa talooyinka halkan iyo daabuurka dadka imaanaya waxay idin sheegayaan inaad qaadan doontaan